كم قصة تترى جاءت بها البشرى موعظات كبرى أو عبرة للناس قصة وسينا تمحو مآسينا تزرع حيا فينا بالعزم والباس يا الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين بإذن الله سبحانه وتعالى waxaynu maanta isxusuusin doonaa qiso ilaahay subxaana wa tacaala uu ku tilmaamay fi lqur'aani اlkariim fii suurati اlburuuj nebi maxamedna calayhi الsalaatu wasalaam si faahfaahsan uga waramay alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wاlcaaqibaة lilmuttaqiin walaa cudwaana ila calى الظaalimiin slى اllahu عlى nabiyina muxamedi wعalى alihi وaصxaabihi أجmaعiin biidn اllahi subxaanaه wa tacaala waxaynu maanta isxusuusin doonaa qiso ilaahay subxaana wa tacaala uu ku tilmaamay fi lqur'aani اlkariim fii suurati اlburuuj nebi maxamedna calayhi الsalaatu wasalaam si faahfaahsan uga waramay waa qisatu asxaabi اlkhduud dadkii muuminiinta ahaa ee godadka iyo boolaha waaweyn inta loo jeexay dabna lagu shiday lagu guray ku sabray iimaankooda diiday gaalnimo inay dib ugu noqdaan cibrooyin badan baa qisadan ku jira casharo badan baynu ka baranaynaa casharadaas waxaa ka mid a dadka madaxda ahi hadday aanay caqiido saxa lahayn iyo iimaan xidha had iyo jeer khuraafaad bay ehel u yihiin madaxda casrigana arrintaasi aada bay ugu badantay wadaad khuraafaadla ah mid faaliyo ah sixiroole agtooda lagama waayo waxaana had iyo jeer ale waxaa kalifaa xubu riyaasa madaxtinimo jacayl marka madaxtinimo jacaylku haddaan iimaan aanu xidhahayn oo aanu dabr ahayn qofka meel xun buu gaadhsiiyaa gaalnimo dilka oo gaalnimada ku xiga inuu dad madaxtinimada u laayo xadgudub iyo tacaddi iyo dulmi inuu sameeyo waxaana taa lagaga baxsan karaa uun in qofka madaxda ahi qalbigiisa ilaahay uu ku xidho oo uu ogaado ka madaxtinimada bixiya inuu yahay ilaahay inta ilaahay subxaana wa tacaala uu qoray una madax inuu ahaanayo maalinta ay ka dhammaatana si kasta oo ciidamadiisa iyo awooddiisa iyo xeeladihiisu ay u badan yihiin iyo tabihiisu in madaxtinimadu ay ka wareegeyso sida ugu fudud ay uga wareegeyso ilahay baa yihi qul illaahuma malika اlmulki tu'ti اlmulka man tashaa watanzicu اlmulka miman tashaa watucizu man tashaa watudilu man tashaa biyadika alkhayr inaka calى kuli shayin qadir ilaahay baa maamulka iska leh waxaad tiraa nebi maxamedow ilaahay baa maamulka iska leh ilaahay subxaana wa tacaala cidduu doono madaxtinimada siya cidu doono ka qaada oo xaggan sarey madaxtinimadu ka imanaysa maaha xagga hoose kuwo waxaa jira madaxtinimo doonka waddo kasta u mara wax saxa iyo wax khaldanba sameeya say madaxu noqon lahaayeen oo dadkuna ay isleeyihiin marnaba ma gefaya inuu madax noqdo oo haddana aan madax noqon waxaa kaloo jira kuwo madaxtinimada kuwa doonaya ha noqdaan laakiin is-ilaaliyo oo waddooyinka xun iska ilaaliya ilaahayna aaminsan oo hadduu ilaahay u qoro inay noqonayaan aaminsan kuna hadlaya arrinta noocaas oo iyagoo aan xoolo badan isticmaalin dad fara badan abaabulin haddana madax noqda waxay tusaalayaashaasi aada uga dhex muuqdaan doorashooyinkan ina soo mara ee baarlamaan hadday tahay iyo golo deegaaniyo waxaan garanayaa nin aanu aada saaxiib u nahay oo is-sharaxay oo intaa uu sharaxnaa aada ismuu hawli jirin qolo ay xisbi ka wada sharaxnaayeen bay mar isu yimaadeen
markaasuu yihi war anigu waxaan aaminsanahay hadduu ilaahay u qoray inaan helayo haddii kalena inaanan helahayn marka anu waxba qarjajac iyo hawl badan iyo dhibaato iyo qaad la daabulo iyo waxa anigu geli maayo haddaa maxaad iska sharaxaysaa maad iska daysid bay yidhahdeen an hadalkaasi aad buu u geli waayey lacagtuu isticmaalay ee doorashada u isticmaalay wax aada u yar ba ahayd oo isaga oo in yar isticmaalo kumanaana iyo nin malaayiin bixiyeyba ayaa isgarab fadhiyey haddana wuu soo baxay madaxtinimada markaa uu ku socday uu gaadhay marka waa in la badiyo aaminaadda ah wuxuu ilaahay bixiyo un in la helayo allahuma laa maanica lima acطayta walaa mucطiya lima manacta marka waa in wadadii arrintaa lagu gaadhayey hadday arrin saxa tahay waa la maraya o asbaabta de waa lala imanaya shareecadayna faraysa laakiin waa inaan arrintaasi loo socdo loo marin waddo kasta oo ilaahay subxana watacaala mid raali gelinaysa mid ka cadhaysanaysana ah waxaa kaloo qisadan aynu ka baranaynaa dadka ahlulbaailka ahi waxay aada ugu dadaalaan baadilkoodu dabadood mid sii jira inuu noqdo bal ninkaasi saaxir buu ahaa baadilnimada madhabkiisa iyo caqiidadiisuba ay caddahay haddana markuu awooddiisa ka webiyey wuxuu doonayey qof dhalinyaraa sixirka inuu ku reebo si uu sixirkani dee muddo usii socdo usii shaqeeyo markaa dadka xaqa aaminsan iyo dacwadda xaqa ah ayaa u mudan inay yeeshaan himada noocaasa oo intay iyagu joogaanna juhdi iyo dadaal badan ay ku bixiyaan faafinta xaqa iyo la dagaalanka baadilka isla markaana ay ku dadaalaan cilmigooda iyo aqoontooda iyo caqiidada saxda ay aaminsan yihiin iyo dacwadda toosan inay cid u sameeyaan inta ay nool yihiin iyaga dabadood waxa weeyaan sii wada si ay dacwaddan saxdi ay u noqoto mid sii socoto oo laysu dhiibdhiibo waxyaabaha kale aynu ka baranayno qisadan waxaa ka mida soo hore baynu ishaaray ilaahay subxaana watacaala hadday dadku arrin doonaan ilaahayna u arrin doono labada tee bay noqonaysaa te ilaahay bay noqonaysaa lilahi اlamru min qabl wa min bacd alaa lahu اlkhalq wاlamr maamulka iyo tasarufka caalamkan ilahay isaga ayaa iska leh arrinta awooddeedana ilahay isaga ayaa leh wallahu gaalib calى amrihi walakina aktar الnaas laa yaclamuun ilaahay subxaana watacaala arrinta uu doono isaga haalibku waa cid kaga haalib noqon kartaa ma jirto saaxirka iyo boqorka iyo cidda la socotay waxay doonayeen inankan inuu noqdo saaxir ilaahayna muxuu doonayey inuu noqdo daacin ilى الtawxiidi wاliimaani wاlxaq mid dadka ugu yeedha tawxiidka iyo iimaanka iyo xaqa marka tii ilaahay uu doonayay bay noqotay asbaabteediina ilahay baa subxana watacaala diyaariyey oo saaxirkii ka sokoysiiyey nin sabab ugu noqday inankaa iimaan iyo tawxiid iyo diinta xaqa inuu qabsado oo a ninkaa raahibka ah ninkaasina sida muuqata juhdi iyo dadaal buu ku bixiyo asbaabtii buu la yimi inankaasi uu ku noqon lahaa qof cilmiga barta kadibna noqdo daaci dadka tawxiidka iyo iimaanka ugu yeedha kufriga iyo shirkigana la dagaalama waxaa kaloo qisadan aynu ka baranaynaa oo caqiidada ahlu sunnaha ka mida ihbaatu karaamaat alawliyaa in la sugo karaamada awliyada awliya waayo qofka weligaa ilaahay baa inoo qeexay oo cid kale inay noo fasirto ugama baahnin alaa ina awliyaء اllahi laa khawf calayhim walaa hum yaxzanuun aladiina aamanuu kaanuu yattaquun qof kasta oo muumina oo ilaahay ka boqo diintiisa ku dhaqma ayaa weli ah qolo gooniyi weliye maaha reer hebel ama hebel ku dhalay welinimadu maaha wax la kala dhaxlo oo ninkii dadku weligaa u yaqaanin markuu dhinto inankiisii oo taariku salaada ama ramadaanta aan soomin ama diin ba aan shaqo ku lahayn ayay welinimadu ku wareegaysa welinimadu saama welinimadu waa sifaad wanaagsan waa iimaan iyo taqwa ilaahay baa sidaa yidhi subxana wa tacaala welinimadu ma aha qofka in laga arko waxyaabo
khaariqu lcaada ah sidii loo bartay khilaafsan oo ka baxsan. waxyaabaha khawaariqu lcaada la idhaahdaa welinimada shardi uma ahaba. waxaa dhici karta qofku inuu yahay awliyada ilaahay kuwa ugu darajo sarreeya, wax allaale waxa dadkaa kale lagu yaqaano ee loo bartay waxaan ahayna inaanay ka muuqan. isagoo duulaya lama arag, isagoo biyo ku dul socda, isagoo waxaasoo dhan laguma arag. waxaa kaloo dhici karta waxyaabahaasi gaalada kuwa ugu gaalnimo xun inay ka muuqdaan, duulitaan iyo shayaadiintu da ay qaadaan, ama sixir dadka indhahooda uu sixrayba arrintaas ay ku timaado, isagoo hinduus oo timihiisa caabuda, ama isagoo biyaha badda iska dul socda. somadaan maqal hebel weli buu ahaayo masalluhu badda dul dhigan jiro kaga tallaabi jiray oo biriishu noqon jirta. imaamu shaafici raximah llahu tacaala wuxuu yihi haddaad aragtaan qof biyaha dul socda dul lugeynaya ama duulaya sida diyaaradaha ama shimbiraha, wanaag ha uga markhaati kicina, waa weli markiiba hala degdegina, markhaati baanaalaha furina ilaa adeegtaan camalkiisa. waa qof saalixa oo ahlu iimaan oo ahlu diinaba ah, oo acmaashii iimaanku ay ka muuqatay qalbigiisa ilahay baa oga, mise sidaa u khilaafsan yihi. aada uga fiirsada arrinta noocaas buuri. karaamaat lawliyaana waa arrimo xagga cilmiga ku saabsan ama kashfiga ku saabsan ama awoodda ku saabsan oo ilaahay addoomihiisa wanaagsan qaarkoodu ka muujiyo. karaamadu cilmi bay noqon kartaa, in qofka ilaahay u yeelo faham khaariqa ama xifdi khaariqa, ilaahay taa uu ku karaameeyo uu ku maamuuso, inuu xifdigiisu yahay mid kii dadka mid aada uga sarreeyo oo rinkoorhka jabiyey, ama fahamkiisu uu sidaayey. karaamay taasi qof u noqon kartaa. karaama waxay noqon kartaa xagga awoodda, inuu ilaahay xoog siiyo, xooggii bani aadamka iyo basharka la midka aada uga sarreeya. saxaabigii safiina la odhan jiray maxaa safiine loogu bixiyey? isagoo ciidan la socda ayaa alaabtii ciidankaasi ay siteen uu kelidii qaaday, intay dooni qaadaabuu kelidii qaaday. ilaahay baa quwada ayaa awooddaa geliyey, markaasaa safiine loo bixiyey. xagga kashfiga ayuu noqon karaa, oo qofka in ilaahay subxana watacaala tusaale ahaan araggiisa uu xoojiyo, oo aragga dadku halku gaadhayey meel ka shishaysa uu gaadho. cumar ibnu khadaab isagoo madiine jooga ayaa ilaahay wuxuu u kashfiyey ciidan uu watay saxaabi la odhan jiray saariya, oo markaa la heedateeyey oo qirinqiir la geliyey. markaasuu halkaa kala hadlo uhi yaa saariyat aljabal, saariya uu ciidanka buurta kula eero. kuwaana ilaahay baa maqashiiyey hadalkiisi. dee cumarna waynu garanaya tawxiidkiisi iyo iimaankiisi iyo alla kacabsigiisi iyo jannaaba dee loogu bushaareeyey isagoo adduunyada dusheeda maraya, oo welinimadiisa wax shaki aba yaraatee kuma jiro. marka inankan ilaahay karaamaad buu ka muujiyey. karaamaadkaas oo ay ka mid tahay in ilaahay uu ducadiisa markiiba ajiibo, inuu ilaahay sababtiisa xanuuno aada u culus uu ku shaafiyo, liquwati iimaanihi wa tawxiidihi wa tacaluqi qalbihi biاllah. iimaankiisa iyo tawxiidkiisa iyo xidhnaanshaha qalbigiisu ilahay uu ku xidhnaabaa aada u xoog badnaa. waxaa kaloo qisadan aynu ka baranaynaa shiddatu alkufaar, shiddatu cidaa'i alkufaar liahli اliimaani waالtawxiid. cadaawadda ay u hayaan gaaladu dadka iimaanka iyo tawxiidka ilaahay waafajiyey siday u daranta. waxaad arkaysaa ninkaa boqorkaahi, ninkii markii hore ka mid ahaa la taliyaashiisa wuu dilay, ninkii caabidkaha wuu dilay, inankaa inuu dilu isku dayey, waa u suurtoobi weyday ilaa wixii inanku uu faray uu sameeyey. dadkii kale ilaahay rumeeyeyna waa ka ciqaabkaa daran mariyey. waxa uu dadaalkiisa u badan ku bixinayeyna waa inay dadku diinta xaqa iyo iimaanka iyo tawxiidka ay ka noqdaan, oo kufri iyo gaalnimo ay dib ugu noqdaan. waxa kale aynu ka baranaynaa qisadan, qofka haddii iimaankiisu uu aada u xoog badan yahay iyo xidhnaanshaha qalbigiisu ilaahay uu ku xidhan yahay, iyo muuqashada aakhira ay u muuqato,
ee aragtidiisu adduunyada ay dhaafsiisan tahay wuxuu taxamul iyo adkaysi u yeelanayaa dhibaatooyinka ilaahay daraaddii usoo gaadhaya wuxuu ku sabrayaa u ku adkaysanayaa ilaahay subxaana watacaala diintiisa haddii qofka iimaankiisu uu daciif yahayna imtixaan yar oo la mariyuu diinta xaqa uga tegaya markaa bal adigu isqiyaas labadaa keebaata wa min annaasi man yacbud allaha calaa xarf fain asaabathu fitnatu inqalaba calaa wajhi dadka qaar baa diinta dacal yar ka haysta halkaasoo kaleu haysta intaasu saasuu diinta u haystaa gebigeedaba dhibaatada u yari markay soo marto khalaas fariisay diinta ka baxaysa dadka qaarkoodna si xoog badan bay diinta u haystaan oo goos dambeedkay ku qaniineen oo amarkii ilaahay bay qaateen ilahay uhi fastamsik biladii uxiya ilayk ku dheg oo si adag u qabso waxyiga fastaqim kamaa umirta waman taaba macaka taladii nebigay qaateen rasuulku alayh الsalaatu wasalaam uu yihi facalaykum bisunati wa sunati اkhulafaa الraashidiin caduu calayha bالnawaajid macnaa tamasakuu biha tamasukan shadiida aada u qabsada marka diintu waa raasamaalka adduunyo iyo aakhiraba waynu aragnay dadku adduunyada si ay ugu sabrayaan wakti dheer si ay adduunyadan darajo uga gaadhaan sabirkay u leeyihiin waxa ilaahay agtiisa iyo aakhira uu ku diyaariyey baa u mudan in sabir iyo adkaysi loo yeesho diintuna waa taa arrimahaasi lagu gaadhayo marka ilaahay addoomihiisa markuu imtixaamo labadaasay u kala baxaan asxaab اlkhduud way sabreen oo lama sheegin qof axad iyaga ka mid ahaa oo diinta ka noqday walihaadaba rasuulku alayh الsalaatu wasalaam uu ummaddiisa tusaale uga dhigay rasuulka oo maka jooga oo muslimiintu mustadcafiin ay yihiin kuwo laga awood baday la tunjilicsado oo harhka kacbada sidaa u jiqilaysan ayaa saxaabada qaarkood oo diinta loo dhibay ay u yimaadeen markaasa yidhaha rasuulka ilahi miyaad ilahay nasri noo weydiinayn waana la dhibay way calaacaleen rasuulku alayh الsalaatu wasalaam wuxuu yihi ummadii idinka horeeyey qofka ka mid a waa la keeni jiray oo miishaar baa hilibkiisa laftiisa lagaga dhili jiray maa yasuduhu dalika can diini arrintaasina diintiisa kama celin jirin diintana ilaahay wuu u gargaarayo way taabogeli doontaa ee sabra oo adkaysta waxaynu qisada ka baranaynaa dadka iimaanka sheegta dadka idhaha ducaad baanu noqonaynaa oo dadkaanu diinta ugu yeedhaynaa waa la imtixaamaya yubtaluun waa la imtixaamaya si iyaga laftooda loo kala shaandheeyo oo loo kala saaro kii arrintaasi ay ka dhab ahayd iyo kii ay sheegasho ka ahayd baa kala baxaya xasiba الnaasu an yutrakuu an yaquluu aamana wahum laa yuftanuun dadkuma waxay u malaynayaan aamanaa in lagaga tegayo muminiin baanu oon la imtixaam ahayn walaqad fatana aladiina min qablihim ilaahay subxana watacala wuxu uhi kuwii ka horeeyey yani ummadda nebi maxamed waanu imtixaano waa la kala saaro waa la kala shaandheeyey marka dadka waxay u qaybsamayaan kuwa imtixaanka ku dhaca iyo kuwa guuleysta marka ilaahay baynu horta caafiye weydiisanaynaa oo imtixaan u yeedhan mayno nabiga alayh الsalaatu wasalaam sidaa yidhi laa tatamanaw liqاء الcaduw wasأlu اllaha alcaafiya ilaahay subxana watacala hadduu ina imtixaamana sabir iyo habaat ayaynu ilahay subxana watacala weydiisanaynaa kuwa sugnaada ee sabra inuu ilaahay subxana watacaala uu inagu daro kuwa ilaahay subxana watacaala liiskooda uu ina geliyo waxaynu qisadan ka baranaynaa ilaahay subxana watacaala awooddiisa iyo siday u xoog badan tahay ilaahay subxana watacaala wuxuu doono awood ka hor istaagi kartaana inaana jirin waad arkaysaa inankaa inta jeera ninkaa boqorkii uu isku dayey inuu dilo ee asbaabtii bani aadamku ay wax ku dili jireen oo dham ay shaqayn weydey oo awooddii ilaahay ay ka xoog ronaatay ilaahay baa awooddiisii ku badbaadiyey oo ku xifdiyey waxaynu qisadan ka baranaynaa marka dagaal lagula jira cadowga been in la sheego si dagaalkaa loogu guuleystay inay bannaantay ninka raahibkii inanka muxuu ku yihi saaxirku markuu ku qabsado waxaad tidhaahdaa
reerkaygii bay habsaamiyey reerkiinu maray ku qabsadaanna macallinkii sixirka ay habsaamiyey labada midna may jirin laakiin xeelad dagaal iyo arrinta noocaasi ay ahayd waxaynu qisadan ka baranaynaa ardaygu inay dhici karto inuu macallinkiisa dhaafo xagga aqoonta inuu dhaafo wax dhici kara wey waxani waa wax ilaahay uu bixinayo nebigu waa kahi inamaa ana qaasim wallahu almucطi anu waan qaybinayaa un cilmigan iyo aqoontan laakiin ka bixinaya ee dadka quluubtooda gelinaya waa ilahay subxana watacaala saas oo kale xagga fadliga iyo wanaagga iyo taahiirka raadeynta waa dhici kartaa ardaygu inuu macallinkiisa waxa weeyaan inuu ku dhaafo waxaynu qisadan ka baranaynaa qofka muslimka ah ee ilaahay uu u sakhiray arrimaha qaarkood awoodaha qaarkoodna rabbi uu siiyey aqoon ilaahay uu baray adduunyaba ha ku saabsanaatee inuu uga faa'iideeyo arrinkaas inuu diinta ilaahay ugu nusreeyo inankaasi cilmiga ibigu ilaahay u fudeeyey soo ma cilmigii ibiga muxuu uga faa'iideystay faafintii dacwadda iyo qof kastoo uu dabiibayaba inuu dhaha anigu kuma shaafiyo ilahay baa ku shaafiya marka allah si uu kuu shaafiyo ilaahay rumee oo dariiqa uu dacwadda markaa u maray iyo wasiilada u adeegsaday aqoontaa gaarka ilaahay uu hibeeyey ayay ahayd marka macallinka sayniska dhigaya ka xisaabta dhigaya dhakhtarka dadka aqoonaha kala duwan leh waajib iyo xil baa ka saaran ilaahay diintiisa kor u qaadisteeda iyo faafinteeda marka waa inay fursadaha iyo nicamka ilaahay uu siiyey ay uga faa'iideystaan qisadan waxyaaba aynu ka barano waxaa ka mida iimaanku meel fog ma jiro laakiin waxay ku xidhan tahay uun inuu ilaahay qalbigaaga khayr ku ogaado uu ku siiyo walow calima allahu fiihim khayra la asmacahum waafajinta ilaahay un buu ku xidhay intaasubaa kaa xigta waad arkeysaa sida dhaksaha ah ee markiiba dadka inankaas dacwadda u bandhigaya ilaahay u rumeynaya marka waa cadiyo ilaahay uu bixiyo hada jeer qofku waa inuu ilaahay iimaan weydiisto iyo hidaaya oo inta ilaahay uu siiyey inay usugnaato una siyaado u korodho ilahay waa inuu ka rajeeyo rabbi subxana watacaala in badan uu ka baryo ilahay baynu subxana watacaala ka baryayna inuu iimaankeenu u quweeyo tawxiidkana ina waafajiyo istiqaamiyo toosnaan iyo diinku dhaqan inuu nagu arsaaqo ilahay baynu raxmadiisa weydiisanaynaa fi dunya waalaakhira ilahay baynu ka baryaynaa barakooyinka samada iyo dhulkaba inuu inoo furo ilahay baynu weydiisanaynaa kayf iyo roob waxtar leh ilahay baynu ka baryaynaa abaarta inuu inaga dulqaado inuu inoo demi dhaafo inaga iyo waalidiinteen kuwa nool iyo kuwa dhintayba وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا